haa aabbo meeshanaydu waxaa qurux badan in teendho laga dhisto. waxaan raadinaynaa meel ku habboon teendho dhisooga oo weliba buur aan lahayn. buugganeeti waxaa ku qoran afkaar aad u cajiib badan, waxaana sheegaysaa meel walboo laga taga in raad lagu reebo si laguu soo xasuusto. waayahay, anagana markaa ka tageyno waxaa ku reebaynaa raad si aan u soo xasuusano biri. soo ma wanaagsana? waa mahadsantihiin maadaama iga aqbasheen fikraddan aan keenane wayna anfici doontaa, anagana waa ku faa'iideynaa. haa aabbo, sidee tahay? yah, waayahay hataa imaaneynaa. markaa waxyaabo badan isku fiirfiirine waxaa ii soo baxday dhaqso nuura, waxaa qasbannahay inaan laabano ayeeyadaada xanuunsan. ayeeyadeeda. qandhada hadda saa'id waaye. haa aniga waan ogahay, waxaa qasbanaa inaan wax sameyno. biyo u qaboojinaynaa kadibna madaxa ka saaraynaa suu qandhada uga jabo. lugahan waa ka xoqayaa, waxaa laga yaabaa markaas inuu qandhada ka jabo. anaa ku caawinayo aabbo. ayeeyo alxamdulilaah, ilaahay ayaa maad iskale hataa caafimaatay. anaga dhan aad ayaa u murugoonay. alxamdulilaah, ilaahay amaad iskale way caafiyey. iniga dhan waan iga mahad celinayaa jaceylka ii muujiseen. kadib markay caafimaatay ayeeyadeeda waxaa meeshaaneeti ka cad inay anaga dhan baarinimo nagu jirto, sidaa darteed waxaa sameynayaa buug oo ka hadlaya arrimaha baarinimada, midaasoo muhiim anaga noo ah. suga, aniga waxaa idin sii rabaa wax. maxaa waaye waxa aabbo? aniga isoo raaca. howlkarnimo korkaagay ahaatay aabbo, anigana waxaa ku faraxsanahay inaa waxaanu idil adiga samaysay. haa awoowe, aniga midaaneeti ma qaadan karaan adigoo raali ah? haa dhammaan waa hadiyada anigani u talagale. awow, waxaanoo idil miyaa adiga gacantaada ku samaysay? ma ku caajisin miyaa? qofka bini'aadanka hadduu shaqadiisa jecel yahay wax walba ayuu sameynayaa, xitaa asigoo caajisin weliba murugooni. kan aad ayuu u fiican yahay, wuxuu ugu anfacayaa suuq inaa ku aado. kadib markaa shaqadeeda jeclaaday weliba aan dadaalay, waxaa soo saara waxyaabahanoo idil oo quruxda badan. waa ku mahadsantahay hadiyadaada aabbo. dhammaanteen oo ku wada faraxna hadiyadahan. laakiin dhammaanteena waxaa noo farxad badan yaasir, sababtoo ah wuxuu helay sariir qurux badan oo weliba cusub oo ku jiifto.